صومالي وأفتخر. أنا 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 صومالي وأفتخر، وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر. صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر، وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر. صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر، وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر. صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر. مقديشو هي القمر، هرقسة هي الأغر، كسمايو أحبها. صومالي وأفتخر. مقديشو هي القمر، هرقسة هي الأغر، كسمايو أحبها. صومالي وأفتخر. مقديشو هي القمر، هرقسة هي الأغر، كسمايو أحبها. صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر. أنا صومالي، صومالي، صومالي. أنا أنا صومالي. أنا صومالي وأفتخر. لن ننحني رغم الأسى، لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا. صومالي وأفتخر. لن ننحني رغم الأسى، لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا. صومالي وأفتخر. لن ننحني رغم الأسى، لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا. صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر. أعداؤنا لن يفلحوا، بلادنا ستنتصر، أبناؤنا هم الحمى. صومالي وأفتخر. أعداؤنا لن يفلحوا، بلادنا ستنتصر، أبناؤنا هم الحمى. صومالي وأفتخر. أعداؤنا لن يفلحوا، بلادنا ستنتصر، أبناؤنا هم الحمى. صومالي وأفتخر. أنا صومالي، 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 صومالي وأفتخر. وأرضنا نحبها، وحبنا سيستمر، فأرضنا هي الأمان. صومالي وأفتخر. وأرضنا نحبها، وحبنا سيستمر، فأرضنا هي الأمل. صومالي وأفتخر. وأرضنا نحبها، وحبنا سيستمر، فأرضنا هي الأمل. صومالي وأفتخر. صومالي. يا إلهي أعد لنا بلادنا، 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 بلادنا يا مقتدر. يا إلهي أعد لنا بلادنا يا مقتدر، فإنني صومالي، صومالي، صومالي وأفتخر. صومالي وأفتخر. صومالي، صومالي وأفتخر. أنا صومالي، صومالي وأفتخر. صومالي وأفتخر. يا إلهي أعد لنا بلادنا، 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 بلادنا يا مقتدر. يا إلهي أعد لنا بلادنا يا مقتدر،
بادر فإنني صومالي صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر أنا صومالي وأفتخر loo baahan yahay in la siiyo qadarka iyo qiimaha uu mudan yahay ha noqdo ganacsi ay dad khaasa samaysteen laakiin dhanka kale marka la fiiriyo wax badan wuxuu ku soo kordhinayaa horumarka xaafadda islii oo noqotay xaafad muslim ah marka labaadna noqotay xaafad ay u badan yihiin ama u badan tahay bulshada iyo mujtamaca soomaalidu aad ay u maalgashadeen in xaafaddii horumar lagu sameeyo oo suuqyadu hormaraan oo guryaha deegaamadu hormaraan oo danaha guud iyo waddooyinka iyo nadaafadda iyo horumar lagu sameeyo waa arrin runtii farax le wey waana arrin loo baahan yahay gurigani wuxuu ka mid yahay barnaamijta runtii muujinaya horumarka xaafadda ka jira markaan dhex marmaray runtii waxyaalo badan baa jira uu miisooyina uu leeyahay waxaa ka mid a saaxada bannaanada faraha badan oo guriga loo sameeyey oo ka gedisan guryaha isili laga dhiso oo aada moodo inay xidhiidh yihiin oo xataa meeshii la mari lahaa ay aada xidhiidh u tahay waxaa ka mid a guriga iyo masaaxada uu ku fadhiyo waxaa ka mid a gudihiisa markaad gasho iyo sida uu waasaca u yahay waxaan leeyahay guryaha waayahan dambe aada loo dhisayo oo xaafadda laga dhisayo gurigu waxbuu ku soo kordhiyey waana mudan tahay in runtii laga sii tillaabo qaado horey loo sii socdo waxaan leeyahay markaa walaalihii guriga dhisay ganacsigaa sameeyey ilaahay ha idiin barakeeyo allana tabaaraka wa tacaala inta iibsata ee degaysana ilaahay tabaaraka wa tacaala iyagana ha u barakeeyo innagana xafladdaas inaan ka soo qayb galno dhiiri gelino aada iyo aad baan ugu faraxsannahay dhanka kale horumarka xaafadda ka jira iyo guryaha la dhisayo suuqyada la dhisayo ganacsiga ka jira waxaa laga maarmaana in aan ku darno oo mar walba ay garab socoto horumarka masaalixda iyo danaha guud inay kala hadhaan ma aha waa inay isgarab socdaan danaha guud waa wixii dadka ka dhaxeeyo waay waa waddooyinka waa nadaafadda waa nabadgeliyada waa goobaha cibaadada waa goobaha waxbarashada waa inay horumarka la socdaan waxyaalaha ina haysta waxaa ka mid a goobihii lagu cibaadaysanayena waa yaryihiin xaafaddii dhismaheedii iyo deegaan ahaanna waa sii kobcaysa masaajida markaad fiiriso waa tiro yaryihiin markaad iskuullada fiiriso iskuullada brivatka khaasatan oo carruurta u badan yihiin inta badan iyagoo yar haddana meelahay ku jiraan waa kiro waxayna ahayd in iyaguna horumarka ay garab socdaan oo horumaraan isbitaallada sidoo kale xaafadda sidii la rabay uma horumarsanaa waa masaalixda guud bay ka mid waddooyinka waayahan dambe allah barakeeyo embiga intuu inoo soo galay yuusuf xasan wax badan baa laga qabtay nadaafaddii baa sidoo kale iyadana tacbaan oon ogsoonnahay meeshay taallo marka waxaan mar walba munaasabaadka aan kaga hadalnaa ayna tahay in lagaga hadlo guryahan quruxda badan ee dhisayno iyo suuqyadan aan dhisayno waa inaan yeelanno xilkasnimadeedii iyo wacyigii aan masaalixda guudna ku horumarin lahay masaalixda guud haddaan la hormarinin middan khaaskaa macno weyn samayn mayso guri qurux badan oo muraayado ah oo dhalaalaya oo haddana qashin iyo bullaacad dhex yaallahay macno ma laha waana macnaha aan fahmi la'nahay haddaan soomaali nahay
masaalixda guud ay naga dhaxaysa mar walba waa dayacan tahay laakiin mideenna khaaska ah xariif baa ku nahay nin walba dantiisa khaaska looma sheego isagaa isku filan aqoonteedii kartideedii waa leeyahay laakiin markaad dan caama ula timaado maba khusaysaba gurigiisa hortiisu ma khuseeyo suuqa hortiisu ma khuseeyo arrintaasi waa arrin u baahan marka wacyigeennu inuu soo kobco oo wacyi magaalo iyo noolaansho iyo waajibaadka dadka ka dhexeeya mas-uuliyaadkaas inaynu usoo kobocno waa laga maarmaan intana waa ku dari lahaa mar labaad baa waxaan leenahay walaalaha waa mahadsan yihiin ilaahayna ganacsigooda ha u barakeeyo masaajidkaan soo marnay iyo meesha madrasada ah waxoogaa xaafadan marka la fiiriyo waa masjid la-aan masaajidu xaggay jiraan eriyadani masaajid kuma yaal waana eriyada haddaan loo soo badanayo xaafadda usoo durkaysa waay hadday suroobi weyday way adkaatay in balood la iibiyo oo masaajid madax bannaan laga dhiso waxaan dhihi lahaa guryaha sidan oo kale u waaweyn malaha waxay ku fiicnaan lahayd ground floor oo dhan in masaajid laga wada dhigo oo qaybta hoose oo dhan masaajid la isugu bixiyo taladaasina ilaa hadda waa taagantaho muxuu ahaayey walaalaha dhisay waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaan meeshana uga jeediyo inta aad masaajidka ugu talagasheenna waa fiican tahay khayr allah idinka siiyo waa dadaasheen laakiin waxaan codsi ku jeedin lahaa inaad isku bixisaan oo ground floor oo dhan aad masaajid ka dhigtaan maxaa yeelay 80 falaad adduunka ha idiin gasho iyo waxaad ka heshaan laakiin intaa hoosoo dhan aakhara ha idiin gasho war codsigaasi malaha waad ila qabtaan baylata soo maa cabdi caydiid way maqlayaa maama maryamna waa joogtaa waan malaynayaa khayr badan lagu yaqaano muxuu ahaay odaygiina waa maqaya isagana inuu joogaa filaan lahayd oo dhakaawo isagana khayr badan lagu yaqaano marka runtii codsigaasi aad baan u codsan lahayd masaajid jumcooyinka lagu tukado oo jamacaadka lagu oogo oo aad u ballaaran baa meesha ka soo bixi lahaa codsigaasina gardarri eedo darro ha ahaatee waa tuuri lahaa jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wuxuu ka kooban yahay 8 unit 80 flat ayuu ka kooban yahay waxaa u dheer masaajidkii madrasadii oo ku taalo underground groundka oo aan hadda ka hor isliin inta la jooga aan laga samayn oo la saari jiray meelaha sare taasaa wax weyn ah insha allah hadduu ilaahay idmo oo aan dadku u samaynay sida ay micnaha aan dabaqa sare loo fuulin taas waa taas gurigan markaan warbixin badan idinka siiyo wuxuu socday muddo 3 sano ah ismihiisa fadhiga uu ku fadhiyo waa hafeka square meterkiisa waxaa dheer oo kale dhul garoon ah oo bannaan oo aan ugu talagalnay wixii markaa aan isnidhaahno way qaban kartaa taasi waa taas horena waxaa idinku sheegay injineeri guriga dhisay inkastoo hadda oo waqtigu uu noo saamaxayn dhakaawe waa sheerka gurigu ka mid yahay uu noo imaanayaa isagana ogaa yara dahitaan baa yara jira iyo xildhibaanka yuusuf xasan oo isagana noo daafuri doona meeshan waxaan jeclahay dadka businesska inaan tusno waxyaabaha aan qabanay in lagu farxo islii sababtoo ah marka wax fiican la qabto ummadda waa la tusaa si ay meesha uga sii magaranaysaa ay hawshooda uga sii wataan oo wax ka sii fiican ay u yimaadaan hawsha guriga waa sidaas waxaan aad u jeclahay dadka dibadaha ka imaanayo inaan gurigan oga iibino because waxaan madrasadii masaajidka ugu samaynay dadka dibadaha lagala soo cararayo inay wax ku bartaan dadka wax guriga iibsado ugu badanna waa dadka qurbaha ka imaanaya oo dadkoodii xaggaa kala soo noqonaya oo isleh ilmaha waxay ku bartaan saa daraaddeed baa madraso fiican iyo masaajid oo hoosta ugu yaallo baan ugu samaynay waxaan jeclaan lahaa qofkii danaynaya gurigan kulley indhihiisu ku arki doonaa waanu soo dhowaynaynaa waxaanu dejinaynaa waxaynu ugu talagalaynaa inuu magaranaysaa jaaniskan maanta uu ka faa'iidaysto wabilaahi towfiiq halkaas ayaan ku dhameeyey waana dadka ka soo qaybgalayaashana aad bay ugu mahadsan yihiin wabilaahi towfiiq aad iyo aadna aan ugu farxsannahay
gurigan quruxda badan oo lagu soo kordhiyay bilicda magaalada Isli muqdishaan hormaanadayga magaalada Isli oo aan deganahay oo runtii wax badan ka bedeli karo sababta guriga hadda soo dhisay yahay saan u aragnay runtii waa ka duwan yahay guriyihii hore la dhisi jiray والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله شرفت سياسيين ده رجع بزي قريبا وياسيدا بدباد الجروب أنو جدورين عيا كسو جدو إن عيا كسو جدو عياش حافظة وتجمع كيو مقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديم لما كان هذا يقول بستي ورقي يقول رأي حافظ جناتي كسر بالله واحد طون جوج واحد زيد أحياء مجالده إسلي هذا الشيء وتم إسلي هو يدي وعوي وصومالي دواي ما يحب كل مين صومالي دواي أول لقوم يدي سياه ما هذا المال قبله ذكرت وجهه جفو إسلي جفو كم جرت شنط صومالي بكمن يوم تكلم عن الدجلنا أول على عناي marka gurigan waxa dhistay reer badbaado xaafaddu waxay leedahay mudane kansalo sleeps community odayaal waxaa jira odayaal badbaado waa odayaasha xaafadda gundhig ku ah hoosta oo markii tala la keenayo ayuu xaafadda loogu imaanaya sleeps community haato mushmil ha ahaado sheekh abubakar ma aqaano maanta waa laga sugaaya ma imaan teleefonkiisa waa xirnaa جماعة أسليس كوميونيتي ناداي كل واو وحوش أبو بكر واو وعيد تلامن كيسة مركا واحد يشي كوريان خير بدبادة دستي مركو حال ربا تدكين واي وحنو جدا ماشي عبد عيد مارشي صديق انت أبو جدا مركا عناقا ودياش أنا قانو ما مرتك في سنة واحد وديار تلجوه واحنا ودياش حافظة وغير بدبادة كوريان مالقشرة شيخ أبو كهالي وإذا الدرع يا شيخ كداشي إنان كهالانو balse maadaay waa ka codurdaatay axmed security inaan meeshan ka hadlo mar hadduu ii dhiibeen problem la xogeenkii shaqabo koranahay oo badbaada golaha odayaasha hoose ah sleeps community waa iskula jirnaa marka anoo magaciisa ku hadlaayo waxaan u hambaliyeynayaa ragga guriga dhistay oo raggeeni ah badbaadan kulley fard intaan ugu soo fiiqnay badbaaday guriga maalgashada gata waana dega asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allihii noogu nicmeeyey noogu deeqay nicmooyin fara badan oo aan la soo koobi karin waxaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha bini aadamka haddaad tihiin nicmooyinka ilaahay idinku deeqay idiin hibeeyey ma soo koobi kartaan nicmooyinka ugu qiimaha badan ee ilaahay noo hibeeyey waxaa ugu qiimo badan نعمة الإيمان والإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وحبني آدم نوهي بي الله ضيق وحوقي مبغى إنه إلهي إيمان نوهي بي إنه إسلام لما الله سبحانه وتعالى ونودرتي إنه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ومديسي الله ونقدقه nicmooyinka aan la soo koobi karin qiimaha leh waxaa ka mid ah inuu ilaahay caafimaad ku siiyey saaka caafimaad ku soo kacday waxaa ka mid ah inuu laxaadkaaga iyo xubnahaaga ilaahay uu isu dheelitiray waxaa ka mid ah nicmatul maal inuu ilaahay subxaana wa tacaala xoolo oo kuugu deeqay iyadoo imtixaan ay tahay oo alle subxaanahu wa tacaala uu fiirinayo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu hibeeyey kuugu deeqay wixii xuquuqii alle subxaanahu wa tacaala aada ka gudatay iyo alle subxaanahu wa tacaala bangigiisa aakhiro wixii aada sii dhigatay loo baahanya marka noloshan adduunyadana in aynu camirno oo gaar ahaan meeshan iyo deegaankan aynu degannahay ummadaha kale la degannahay inaynu soomaali cunsurkan soomaaliga haddaan nahay aynu ka muuqanno oo haddii ay ku runyahay hanti gashanno si dhulka waxaa lagu mulkiyaa waxa weeye waa tacmiirka hadda emli baynu leenahay waxaynu ku mulkiyi karnaa marka
oo hogaankii iyo taladii siyaasiga ahaaba ku qaadan karnaa inaynu camirno dhulkii camirno oo dhisno oo haddii ay ku horumar aynu ka samayno xaafadana ka timid waxa kale toon doonayaa inaan u tahniyadeeyo dadka ka dambeeyay dhismaha daartan quruxda badan ee maanta u nimid xafladeeda oo Cabdi Caydiidi oo kamid yahay reer Dakaawe Mariyan Cabdilaahi meesha ku arkayay dhamaantood reer awoogay waan idin wada salaamay waxa jooga iyo wixii hawshan ku lahaa oo dhanba aad baan ugu faraxsanahay daartan waxay muujinaysaa xoogga iyo quwadda dadka Soomaalidu ay ku leeyihiin magaalo madaxda dalkeena xoogga soo kordhayay hantida Soomaaliyeed runtina saldhig siyaasadeed umad ma yeelan karto haddaanay lahayn saldhig ganacsi iyo saldhig hanti umad marka ay dhisanto oo ay kacdo oo ay xoogaysato ayay hawooyin kale ku soo darsataa oo taa iminka ay ka mid tahay inaad dooran kartaan xildhibaan Soomaaliyeed inaad dooran kartaan MCA Soomaaliyeed inaad hawadaasi ka sii badan dhalinyaradena ay gasho oo aad tiraahdaan xildhibaannimada waxba ma aha MCA-nimada waxba ma aha gafnanimada magaaladana barinaan haweysano ayay noo suurtagelinaysaa marka waan idinkugu tahniyadeynayaa inaan magaaladan deganahay aan xididda ku leenahay oo ku xoogaysanay bay muujinaysaa oo dadkii reer guuraaga ah ee iska soo mari jiray aanu nahayn oo dad degan oo lala xisaabtami karo oo hantidoodii iyo xooggoodii uu muuqdo aan nahay marka aad baan ugu faraxsanahay taas waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu noo sii kordhiyo nabadda iyo xasiloonaanta wadankana inuu noo sii kordhiyo bashbash iyo barwaaqo dhammaanteena aan gaarno hantideena iyo awooddeennana aan kaga faa'iidno oo aan wax ugu qabanno dadka kale teen dariska nahay meesha wada degannahay marka waan soo dhaweynayaa mar kalena waan idin wada salaamayaa maadaama microphone-ka aad u dhibteen nin siyaasi ah waxaan jeclahay laba eray oo kale oo hoosena inaan ku yar tuurto waad ogsoontihiin inaan waqti doorasho ku jirno dagaal adag baan soo marnay dagaalkana runtii si geesinimo leh si firfircoon oo aad iyo aad u adag oo aanan la aragoona maqal baad ugu soo baxdeen safkii dheeraa codkii faraha badnaa dad fara badan oo markii hore hunguri kaga jiray Kamukunji kursiga xildhibaannimadu way qalbi jabeen way ka samreen oo maanta kursigaasi dhaxal Soomaaliyeed buu noqday oo waxaan filayaa doorashadan wixii ka dambeeya inuusan muran ka jirin Kamukunji iyo Islii kursigeeda inuu leeyahay nin dadkan u dhashay oo aad iska leeyihiin dhaxalkeeda taana run ahaantii Yuusuf ma soo hoyin anigu markii hore 6-7 sano markii aan codkii idin weydiistay intaad sidaa ay eegteen baad tiraahdeen war ninkan waa la naxagu ka yimid meeshan kursigan tiradeedina ma hayno dhaqaalaheedina ma hayno shaqo fiican baad iska haysaa sataaye bal sheedaanka iska naaro dad baa si khalad ahaan kuugu fawaramay shaqadaada isaga noqo baad tirahdeen laakiin maanta idinkiiba ay hor ordaya oo meel kasta socdo wax kasta kala tuuraya taasna farxad weyn bay tahay guul weyn bay noo tahay kulligeen kursigiina daafacda mar kale si laxaad la u soo baxa bisha 8 aan hubsanno oo aan kursigaasi dhaxalkeeda aan ilaalino intaa baan anigu idinka codsanayaa waan ogahay inaad soo baxaysaan oo si buuxda u taageeri doontaan waanan mahadsantiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh